garoob ah oo keligeed degan oo lug ka yar dhutinaysa yaa laysoo helay maanaaba heli karaba gabadhii baanu isbaranay muddaanu sheekaysanay markiiba sheekadanadii waa isqabsatay qorraxay qaybta ciidda cas baan kasoo wada jeednay qayb ciidda cas la yidhahdaa jirtay dee inaad taqaano mooyaan calow aad baan u garanay goglo iyo dhulkaas iyo marsin iyo waxaasoo dhan gabadhii hal cillad baa nugu timid mar allaale markii aqalgalkanagii la gaadho oo 2 beri ay ka dhiman tahay unbay dhihi un ii kaadii 2 usbuuc baan soo fakariyey inaad fakarkaan dhammaanayn waa maxay adigu laakiin way kaa go'an tahay way go'anta dee lacagtiina waan haystaa waxiga dhul yaallo kalena ma jiro guri keligeena waan haystaa oo ninkii la deganaa ma dhihi wariga guri orod meelaha ka raadsabeel ninkaan 2,000 ka qaadahay waxbaa saacaan isu dul saaray walaba gabadhi gaala dhaqaaji haye ii kaadin bay dhihin yar shakin un markii baashu soo dhawaato 2 usbuucaan dhammaanaynin carab iyo yuhuud ma heshiisiinayne inaad naga dhex qaad ma insha allah hadu sug bay ku dhihi maxaad ku degdegaysaa aniga insha allah hadi baa col noqonay haye astaghfirullah alazim tii waad karaahaysanaysaa qof aan waxba kula wadin markuu mar walba insha allah ku dhaho gabadhii baan waxaan go'aan ku gaadhay inaan faraha ka qaado talaca karantay ha haye iyadu soo kuma ay jecelo oo kaamayn helin way rabtaa laakiin waa gabadh wadaadska oo miskiin iska oon hadal badnayn oo iska waxaysan aniga marka hal wax baa markaa muhiimiya dadka meesha jooga waa 3 qolaan u qaybiyey qolo waa qolo waqti ku raagay meesha oo ku dhashay oo Norwejiga la mid noqday oo luqadooda xataa kala badh waa Norweji waa nooshka isma fahmaynaba kuwaas salaamu calaykum calaykum assalaam isuma dhaafno way kugu qosliyo markaad sheekaynayso qolana waa qolo iga soo yar horeysay oo sharciga qaatay oo markaasi waxa rabay inay yabtaan oo xiiqsan oo lacag waxaan haynaan ka fikirayn qoladaas ku jirta iyadu qolana waa qolo falay 13 ah oo markaa yimid oo wali safanki ku yaalo caga oo anoo kala oo wax kaam ku jiri iyo qof ka soo baxay oo hadda la dajiyay iyo oo luuqadii baranay weeyaan ani marka labadan qole ee dambe yaan wax ku darsan karaa gabadhu marka wax kale aan ku sii dooranay dibay guri isku qoofalan oo habaysan oo nidaamsan oo reer horaa ka dumay moogtay bay iska haysatay marka dee boorsadeedii dharka ahayd ee 4 nooc ka koobnayd meesha la iman lahaa sidaad ula degtay xisaabtaasaan markii anigu isku hayaa laakiin gabadh haddaad yar hadda gurkaaga wuxuu yar ahaa guur macal qorshe guur macal qorshe macal danaysi sax jacayl lama jirin dee markaa jacaylku naga soo dhamaaba dee intaasu jeer baan wax jeclaanay dhowr jeer baa sideeda wax la jeclaadaa moogtay qof haddaa aragto qofku arkaba dhaha waan ku jeclahay waxbaa iskaga qasan rabitaan iyo jacayl waan gartay gabadhii marka way ku waa soo keen weeyday gabadhii markii mar walba anigana waxaa laygu xantaa inaan yar degdego xanta ka sukowna waaba isku ogahay degdegaasi marka dhibaatooyin fara badan yaan kala soo kulmay sax gabadhii waxaan ku yidhahdaa inuu kala wad meesha adiyo insha allahu daaduba israaqad kale aan doonanayaa baan ku yidhi inuu kala wad meesha